أحمسكيو هذا نكتادو عشان أنا هلا يكور نصيحة يس عندها نور كودا يس حسن إن شاء الله إلى قرمة إلا يتلبلب ميس waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada halkani waa badweyne tube waxaana niisoo gudbinaynaa xogihii ugu dambeeyey ee fanaaniinta Soomaalida iyo waliba fanka Soomaaliya xogtani ayaa sheegaysa in Axmed Zaki habeenkii xalay uu ka baaqday arooskii nasteexaynta ee uu ka dhacay magaalada London Axmed Zaki oo ku sugan magaalada London ayaa la filayay inuu ka qayb galo arooskaasi isla markaana uu ka qaado heeso dhowr ah balse Axmed Zaki ayaa habeenkii xalay ka soo muuqday xaflad ay lahaayeen kooxda Kaaf iyo kala dheeri Axmed Zaki ayaa lagu xasuustaa inay nasteexaynta aad isugu dhawaayeen waxaana mararka qaar lagu xamin jiray inay isqabaan Axmed Zaki ayaa habeenadii ugu dambeysay waxaana la arkayay asagoo ka sii fogaanaya nasteexaynta warar hoose oo aan helayno ayaa sheegayo in xaajiga nasteexaynta inuu u hajabay Axmed Zaki xaajiga qaba ee nasteexaynta oo lagu magacaabo Xuseen ayaa la sheegayaa inuu aad uga caroodo muuqaalada qaar ee hore isla duubeen waxaana uu ka cabsi qabaa in uu Axmed Zaki uu kashifo xogo badan oo ku saabsan nasteexaynta iyo Axmed Zaki ayaa ahaa kuwo aad isugu dhawaa saaxiibo mararka qaarkoodna Soomaalida waxay u maran jireen inay isa qabaan halka mararka qaarkood la sheegi jiray in nasteexaynta u qaaday uur balse markii dambe ay isku soo gabagabowday Axmed Zakina uu aroosay gabar kale ku sugan magaalada Hargeysa ee deegaanada Somaliland halka nasteexaynta uu aroosayaan ku nool magaalada London Axmed Zaki iyo nasteexaynta ayaa haatan kala jooga habeenii maalin maadaama uu soo dhaxgalay Xuseen isla markaana aad uga cabsi qabo ninkani si aan mar walba nagu soo gudbino wararka iyo xogaha fanaaniinta subscribe like share channelkan waa channelkiina